بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدبا جنالكين قعمة فرن إيه قلب صافية وإدين سودبينا الصومالي وين وان إدين سلامة ميلو بدجوكتا ماني ونكسن مانتا وحاك هدلينا haddii aad rabtid in lagu ixtiraamo hubaal annagoo dhan waa rabnaa ixtiraam waanan mudannahay qof walba oo bini aadan ah in la ixtiraamka waajib waay laakiin waxay tahay dadka qaar inaanay aqoonin ixtiraamka inuu waajib yahay waxyaabo badan ay isaga khaldan yihiin marka adduunka dadka isku caqli maha isku garaad maha isku garasho mahan isku naxariis maha isku dadnimo maahan marka xadgudubkaas saa ugu badbaadid oo adiga aad ku noqotid qof la ixtiraamo ixtiraamkaaga adiga aad dadka ku qasabtid waajib adigan ku saaran waa naftaadii in qasab ay tahay in lagu ixtiraamo qasab waa qof walba oo bini aadan inuu ku ixtiraamo marka waxyaaba waxaa jiro oo maxay ahayd lagu kasbado ixtiraamka oo haddii aad rabtid in lagu ixtiraamo ay tahay inaad martid adduunka sidiisa waxaa jira sharciyo iyo qawaaniin waxaa jira oo lagu socdaa jir soo ma kow inaad horta naftaada aad ixtiraamtid qof walba oo naftiisa ixtiraamo huwaal waa la ixtiraamaya inaad joojisid xadgudubka oo aadan ku xadgudbin dadka kaleenta oo bini aadanka inaadan qofna ku xadgudbin xataa xayawaanka ilaahay inay kaa nabad galaan muhiim waay adoo ilaahay uga baqaayo maaha qofkaasa ku jeclaado maaha lagaa arko xayawaanka u naxariisataa maaha ha lagaa arko dhirta u naxariisataa allah ilaahay dartiisa ugu dhawaanayo mar walbood ilaahay xifdisidna ilaahay asagaa ku xifdinaya sooma ilaahay xifdi asagaa ku xifdinaya waayo xifdintii ay kamid tahay in lagu ixtiraamo oo ixtiraamkaagii aanu dhulka ku dhicin tan kaleenta oo keenaysa in lagu ixtiraamo waxaa waa in xuduud aa leedahay haddaa xuduud leedahay hubaal waa lagu ixtiraamaya qof walba oo leh xuduud wuxuu leeyahay ixtiraam ku fiirsa dadka bini aadanka dadka xuduudooda ay iska furan tahay iyo dadka xuduudaha leh oo weliba xuduudooda ay adag tahay aadaa loo ixtiraamaa marka dadka xuduuda leh oo gurigooda xuduud ay leedahay shaqsiyadooda xuduud ay leedahay aadaa loo ixtiraamaa waa ixtiraamkii waxay ugu dhigeen dadka kaleenta farad inuu yahay lagu soo xadgudbi karin oo yaqaan xuduudda sida loo adkeeyo haddaan aqoonin dhib malaha waa baran kartaa annagaba waxaa jiri jirta marar aan aqoonin xuduudda sida loo adkeeyo aan aqoonin sida xuduud loo samaystaba inaan aqoonin bini aadanka waxuusan aqoonin wuu baranaya wax problem ma leh laakiin isku day inaad xuduuddaas aad adkeysid oo xuduud fiican aad yeelatid waxyaabaha keenaya ay kamid tahay in lagu ixtiraamo oo weliba aad lagu ixtiraamo waxyaabaha keenaya in lagu ixtiraamo waxaa kamid ah ayadan haddaa rabta in lagu ixtiraamo inay kaa muuqato kalsooni nafsadeed oo naftaada aad ku kalsoon tahay qof ay ka muuqato kalsooni daro qofna ma ixtiraamayso hubaal waay haddaa rabtid in lagu ixtiraamo jooji dacwada aad ka dacwoonaysid duruufaha iyo danta aad ka dacwoonaysid qof maanta oo dhan wada dacwo maanta oo dhan waxaa waay cabaadayo oo cabasho wado qofna ma jeclaanayso qofna ma ixtiraamayso waana laga hadidaya muhiimadda maaha u sameynaysid in aan laga hadidin laakiin muhiimadda u sameynayso waxay tahay naftaada waxay mudan tahay ixtiraam inaadan u dacwoonin ilaahay subxaanahu watacaala aad u dacwootid iyo qofkii mudan inaad u dacwootid laakiin meel walbo iyo qof walbo aad probleemkaaga aad ku furtid maha hubantii probleemkaaga mararka qaar waa u baahan tahay inaad dad ay ku maqlaan in dad ay kaa caawiyaan laakiin maha meel walbo iyo mar walbo maha marka shakwada amba dacwada badan oo la yareeyo ixtiraam ayaa lagu kasbadaa waxyaabaha kaleenta haddii aad rabtid in lagu ixtiraamo in aan waxba laga aqoonin ixtiraamkaaga aada u kordhaya in adiga waxaa tahay shaqsiyan aan lagu aqoonin xataa dadka kuu dhow oo hareerahaaga inaanay ku aqoonin ay dusha kaa yaqaanaan oo keliya ixtiraama leeda waayo laguma oga waxaa tahay waxaa gashid waxaa gudid waxaad kasbatid waxaad bixisid waxba lagaama yaqaan mararka qaar waxaa dhacday in adoo faqiir ah xataa lagu malay qof qani ah waana nooc subxaan allah ilaahay oo kugu deeqaa hibo ilaahay oo ku siiyo waa lagu dhahay waaw qofkaasaa qof khatar ah waa in lagu dhahayo kaleed maxaa keenaya inaan waxba laga aqoonin dadka uma dacwootid waxaa gashid iyo waxaa gudid laguma yaqaano dadka waa salaantaa keliya markii dhib dhaco dadka caawi waxyaabaha ixtiraamka lagu mutay kamid tahay mid kutaaka sameyni waxyaabaha ixtiraam darada dadka kurida ay kamid tahay daarad in lagu ixtiraamo waxayd in haddii aad khalad samaysid aad taqaanid sida raaligelinta loo bixiyo ayadana waxaa waaye nooc lagu kasbado ixtiraamka waayo haddaa khaldantid ood raaligelin aadan bixinaynin dadka bini aadanka ah
mahan waa waxaan u muuqanaysaa qof daalin ah u muuqanaysaa ama aad noqonaysaa aragtida dadka qaarna waxaa waaye qof liita ayaad noqonaysaa amba qof kibir badan ayaad noqonaysaa laakiin hadday dhacdo inaad qalad aad gashid bini aadan aad tahay soomaha ma qaldama allah waay subxaana watacaala inaad awoodeedii aad leedahay geesinimadeedii iyo kartideedii iyo qofnimadeedii aad leedahay aad dhihi kartid aniga khaladkan waa galay iga raali noqo weliba qofkii aad ka gashay aad toos aad u dhihi karta idan waxaa waaye nooc lagu kasbado ixtiraamka ay kamid tahay waayo qofkii waa ku ixtiraamaya qofka aad dhahday iga raali noqo wuxuu ku arkaya qof aad dadku qadaray inaad tahay hubaal marka aad dhehaysidna ma aha muhiimad inaad asaga aad kasbanaysid yani wax walba waxaaba adduunka hadafaa jira sooma hadafka aad ka leedahay aysan ahaanin qofkan ayaan kasbanaya hadafka ha noqdo aniga ilaahay ayaan ka cabsanaya qofkan waa ku xadgudbay xaq iyo xuquuq ayuu ugu yeelanaya haddaana dhihin iga raali noqo ama aanu iga cafin xaqaas waxaan ka baqaya ilaahay maalinta la hortaagan yahay in xaqaas uu igu soo baxo adoo hadafkaaga uu yahay yani wax walba adduunka waxaaba hadaf waa sooma laakiin hadafkaaga hadduu kaas yahay okay waa maasha allah tabaaraka allah qof ficlan waxaa tahay ixtiraam mudan oo in la ixtiraamo ay tahay waana mudan tahay ixtiraamidana maaha macnaheeda haddaadan intaas sameynin in lagu ixtiraameynin ixtiraamkaaga inuu dhacaayo maha laakiin ixtiraam aad farad qofku yeeshay ood kasbatay waa soomaha marka shakhsiyadaadi adiga la arko dadka inaadan ku xadgudbeynin dadka inaadan danahaaga iyo duruufahaada aadan u sheeganeyn ilaa dad kooban oo adiga aad ku kalsoon tahay mooye in ay kaa muuqato qof kalsooni badan inaad tahay oo hadalka u dhaho mas-uuliyadeeda qaadi kara waxyaabaha ixtiraamka lagu helo ayay tahay waxaa dhahday waa khaldantay waa inaad dhihi kartid raali noqo waa in xuduud adag aa leedahay haddaadan xuduud lahayn qofna ku ixtiraameynin waxaad noqonaysaa qof la sahashanaayo ayaad noqonaysaa waxyaabaha lagu ixtiraamo bini aadanka waxaa ka mid ah in adiga awood aad u leedahay inaad u noolaatid sida adiga aad jeceshahay waayo noloshaan adaa iskale ilaahay subxaana watacaala ku xisaabina adoon qofna ku xadgudbeynin dadka kalena dhaawaceynin awoodna aad u leedahay ama aad awood u leedahay inaad maqashid ee dhaleeceynta kaaga imaanaysa dadka kaleenta waayo markaad dooratid sida adiga aad rabtid inaad u noolaatid waxaa imaanayo dhaliil iyo dhaleeceyn fara badan ayaa imaanaysa aadan dheg jalaq u siin dadku markay arkaan intaada aad ka wadatid oo dheg jalaq aadan u siinayn waxaa badanayo amba aad kasbanaysaa kalsoonidoodii iyo ixtiraamkoodii ayaad kasbanaysaa waayo hadaladoodii waxba kuuma dhimin mar walbana waxaa qurux badan hadalada kuwa dhaliila kuwa dhaleeceynta oo waxaa waaye oo eberka ah kaaga imaanaya inaad dhegaha aad ka furaysatid oo hore aad u socotidaa fiican dhaliishase lagugu saxaayo waa mid aad u qurux badan waay oo waxaa waaye muhiimay ku tahay adiga naftirkaaga inaad ogaatid meesha aad ka qaldantaa marka anagoo dhan waa jecelnaa in la ixtiraamo haddaad naftaada ixtiraamtid waa lagu ixtiraamaya waana ku mahadsan tahay daawada